wasiirka maaliyadda xukuumadda federaalka Soomaaliya Mudane Cabdiraxmaan Ducaale Beele iyo wafdi ballaaran oo la socday ayaa xarunta jaamacadda Carabta ee Qaahira uga qayb galay shir 3 geesood ah oo looga hadlayay sidii deymaha looga cafin lahaa Soomaaliya. wasiir Cabdiraxmaan Ducaale Beele iyo wafdigiisa ayaa 2 maalin oo xiriir ah kulamo aan kala go' lahayn la qaatay wafuudka kala socotay xogeynta jaamacadda Carabta, ururyo Carbeed iyo Sanduuqa Horumarinta Carabta. waxaana kulamadan diiradda lagu saaray sidii Soomaaliya looga cafin lahaa deymaha dibadda ee ay ku leeyihiin ururada iyo dawladaha ku midoobay ururka jaamacadda Carabta, iyo in Soomaaliya la siiyo mudnaan lagana caawiyo baahiyaha xukuumadda Soomaaliya si loo fuliyo ballanqaadyadii hore ee laga sugayay ururka jaamacadda Carabta. sidoo kale wasiirka oo la kulmay xogayaha guud ee ururka jaamacadda Carabta Dr. Axmed Abuqayd ayaa waxa uu kala hadlay sidii codsiga deen cafinta ee dawladda Soomaaliya loogu dari lahaa ajendaha shirka soo socda ee la qabanayo bisha fooda inagu soo haysa. Dr. Axmed Abuqayd, xogayaha guud ee ururka jaamacadda Carabta, ayaa aqbalay dalabka wasiirka, waxaana dawladda Soomaaliya ee ay hogaaminayaan madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo iyo ra'iisul wasaare Xasan Cali Kheyre ku bogaadiyay isbedelada wanaagsan ee ka muuqda dhanka siyaasadda, dhaqaalaha iyo sidoo kale in dawladda Soomaaliya ay ka go'an tahay sidii loo cafin lahaa deymaha dibadda. ugu dambeyn, wasiirka maaliyadda xukuumadda federaalka Soomaaliya Mudane Cabdiraxmaan Ducaale Beele ayaan weydiiyay wixii uga qabsoomay shirka, waxa uuna yiri inaan iswareysano oo wax meel isla dhigno ayaan meesha u nimi, gaar ahaan dhowr arrimood baan damacnayna ka wada hadallo. waxaan ka wada hadlaynay waxa weeye deyntii laynagu lahaa in laynaga dhaafo. arrintaas oo nagu dheeraatay oo nagu daba dheeraatay oo adduunyadii kale soo dhaweysay sidaan wax soo sameynay oo adduunyadii kale maanta diyaar u tahay inay naga dhaafto ayaan Carabta ku lahayn idoo kalkii taagantii. arrinta labaad waxa weeye kabka budgetka oo ay ku ballan qaadeen 2015 inay 10 milyan Soomaalida siiyaan bil walba oo aba intay naga dhiman imika aan u baahanahay ayadana waxa doonayna inay meel ku sheegaan. arrinta saddexaad aan ka wada hadlaynay waxa weeye Soomaaliya way burburtay, dib u dhis bay u baahan tahay. adduunyadii kale ayaa imanayso dib u dhisayso oo nacaawinaysa. idinku amarkiina cadeeya inaan halkee taagantii. saddexda arrimood ayaa noogu waaweynaa. jaamacadda Carabtu iyadu lacag inaguma laha, dawladaha lacag nagu leh iyo organizationska dawladuhu leeyihiin yaa lacag nagu leh. marka iyagu laakiin waxay qaban karaan dhowr arrimood. dacwadeena geyn karaan, dalalkay soo fariisin karaan hadday si fiican inoo fahmaan. marka waxaan ku heshinay waxa weeye arrinta deyn cafisku inay noqoto ajendaha shirka ugu horeeya ee soo socda oo lagu qaban doono bishan imika fooda inagu soo haysay January. dhanka kale Safiir Cabdiqani Maxamed Wacays ayaa casho sharaf iyo sagootin u sameeyay wasiirka maaliyadda iyo wafdigiisa, waxaana ka mahad celiyay casho sharaftii loo sameeyay wasiirka oo goobta ka sheegay in safiirka iyo diblomaasiyiinta safaaradda uu kala kulmay soo dhaweyntii ugu sareysay. Mawlid Xasan Cabdi Mawlid Muha, warbaahinta qaranka, Qaahira.